heer hoosaad ka hadlaysaa gudoomiye hadla yaa qaylinaysaa heer hoosad waa ka hadlaysaa waa dood culus oo salka ku haysa sharci ka soo horjeeda diinta islaamka oo la keenay baarlamaanka kaas oo ah axdiga Afrika ee xuquuqda iyo baraaraha carruurta iyo xildhibaanada golaha shacabka oo labada dhinac u kala baxay shantii oo maaragtay balse xildhibaan sareedo ayaa shaydaanka iska naar ku tiray xildhibaanada golaha shacabka ee dooda waday bismillaahir rahmaanir rahiim baarlamaanka shaydaanka isku naar waxaan ilmo waay African Union aan ku soo heshin urur caalami aan ku jirnaa anaga waxaan dhaqankeena ahaan ilmaheena kuma dhaqayno xildhibaan gaaraxo iyo cali mahdi qalato ayaa ku dooday in sharcigan uu ahayn mid taageersan ama waafaqsan diinta islaamka sidaas darteedna muhiim ay tahay in la tashi la sameeyo inta aan la ansixin ka hor dadka hadda qaylinayo shariicada islaamka meesha ay ugu taal 18 baa lagu qaangaaraa keensada anigu sharciga islaamka aan ka hadlaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mid ay isku khilaafsan yihiin culimada islaamka oo ay qaar qabaan inay da'du qaangaarka ay tahay 18 sano dabcan maanta waxaa fiicnaan lahayd inay culimmadu nala joogto ay na kala saarto laakiin anigu sidaan kolley intaan ka aqaano 18 sano cid isku khilaafsan ma jirto sidaanu ku soo qaadanay shareecada islaamka waxaa jira dee calaamado lagu qaangaaro oo calaamadahaas qofka haddii 9 sano uu gaaro uu qaangaar yahay haddii kalena 15 sano marka waxaan rabnaa shiikhi waa joogaay horta qodobkaas shareecadu waxay ka qabto inuu shiikhu si u faahfaahiyo dabcan isaga aqoon u leh marka horta bal qodobkaas shiikhu waa ku kala saaro dadka tan kalena gudoomiye xeeroosaadka inaa raacdaa qurux badan meesha waxaan ugu soo qortay codayn iyo arkin marka horta aan arkinta aan ka doodo marka xildhibaan maxamed haaruun oo xaaladda dejinaya ayaa sidan ku dooday gudoomiye si aan muranba uga fogaano inagoo hadda fadhina daqiiqad gudaheed marka akhrinta labaad ee xeerka kalena la yaana la mariyo xid inagoo goobta fadhina mar labaad fur xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay in sharcigan uu yahay sharci muhiim ah iyagoona sharaxaad kooban ka bixiyay da'da ma qaangaar mise da'da mas'uuliyadda haddii laga hadlaayo da'da qaangaarka ah sideedaba dhimashada nabiga calayhi salaatu wasalaam macnaheeda waxa weeyaan dadka caqligooda ha furaan oo waxa markaas iyaga noloshooda iyo waaqicooda ku munaasibsan ha qaataan dadka laga qaatana waa culimada guddigii haddii ay la soo tashteen culimadii isla markaana ay soo jeediyeen da'daas iyada ah annaga reer galbeed kama hadlin culimadana reer galbeed kama hadlin guddigana reer galbeed kama hadlin annagana yaanan ka carin